khudbadu si toos ah telefishinka uga jeediyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayuu ku sheegay in muddo 3 cisho la hakiyay dhammaan duulimaadyadii Mareykanka uga iman jiray Yurub. All travel from Europe to the United States for the next 30 days. Xayiraadaas ayuu Trump ku sheegay inay tahay mid adag balse loo baahan yahay. Wuxuuna intaasi raaciyay inaysan ku ekayn oo kaliya dalka Britain oo xanuunku farabaas ku haya balse ay tahay dhammaan dalalka Yurub. dalka Mareykanka 1135 kiis oo xanuunka corona ayaa la xaqiijiyay halka 38 qof oo kalena ay u dhinteen. si loo joojiyay in kiisas cusub soo galaan dalkeena waxaan hakinay dhammaan duulimaadyadii inooga iman jiray Yurub ayuu yiri madaxweyne Trump. xayiraadan ayuu madaxweyne Trump sheegay inay dhaqan gali doonto habeenka Jimcaha. madaxweyne Trump waxa uu dalalka midowga Yurub ku eedeeyay inay ku guuldareysteen inay qaadaan talaabooyin looga gaashaaman karo xanuunka si la mid ah Mareykanka. waxaana uu hadalkan jeediyay saacadan kadib markii dalka Talyaaniga oo dalka ugu badan ee xanuunkan u saameeyay Yurub marka laga tago Shiinaha oo ku dhawaaqay talaabooyin dheeraad ah oo wax lagaga qabanayo xanuunka corona. Mareykanku waxa kale oo uu sheegay in xayiraadu saameyn doonto ganacsiga iyo badeecadaha Mareykanka uga yimaada Yurub. madaxweyne Trump sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay in lacago amaah la siin doono ganacsatada yaryar ee uu saameeyay xanuunku waxaana aqalka Congress-ka ugu baaqay inay meel mariyaan. Cabdiraxmaan Maxamuud Haybe Cabdiraxmaan Gacayro telefishinka Badda Cas.